الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة واندن سلامي إلهي سبحانه وتعالى هايدن بركايو. الله سبحانه وتعالى وحوليه أسقو الدومدي صلى الله عليه دمان قال يا إسلام بوحولي الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ورهوي ددو الله سبحانه وتعالى كليجي عابدا ربي قاسو إني كان إذن أبوري كوي إذن كهرينا أبوري وحاد مدنتهين إناد كعوستاني الله هاسي وكرلك إذن فديي samadan korkiinana ku dhisay ee idinka soo dejinaya samada biyo oo waliba dhulka ay idinka soo saarayaan midhaha iyo risqigiina aad cunaysaan. fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. bu Allah ku gabagabeeyay macnaheeduna ay tahay Allah subhanahu wa ta'ala waxbaha la wadaajinina. ilaahay subhanahu wa ta'ala kirigi caabuda oo waxbaha la wadaajinina wa antum ta'lamuuna inigu oo waliba og. maxaad ogtihiin? waxaad ogtihiin ilaahay inuu idin abuuray, laakiin cibaadadiina waxa weeyaan waad leexinaysaan. macnaheedu waa sidaa. allah subxaanahu wa tacaala mar labaad waxa uu leeyahay: wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay'a. allah subxaanahu wa tacaala keligii caabuda, waxna ha la wadaajinina. allah jalla wacalaa mar kale waxa uu leeyahay: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انت أن أقر لي هاي وحا أيتهاي وأن تشركوا بالله ما به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وحويا إلهي سبحانه وتعالى إناد وحلو ذا جسان إنيقو وليبا وحجنا آنو هيسن. الله سبحانه وتعالى إناد وحلا عابدان وحلا بريدان وليبا إنيقو وحبا حجا الله هيسن با ولا إذن أرنبريا. نعم وحجا الله مهلا يا إلهي سبحانه وتعالى غيرك إن لبريو. إلهي سبحانه وتعالى iyo rasuulkiisuba waxa ay bari ka yihiin qof kasta oo mushrik ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala غيرkii bariya bari bay ka yihiin. allah jalla wa ala wuxuu leeyahay quraankiisa: wa adanun min allahi wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar anna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu. macnaheedu waxay tahay qaybta u dambayso الله سبحانه وتعالى وحو بري كيحي يا رسول كيسوبا مشركين تعيي بري كيهن لبدودو. إذن وحويان الله سبحانه وتعالى كيريجي إن لبريو أو لعابدو أيا أدونك قفك بني آدم غايدا إيا دنتا إيا هدفك اللي يهي وإنت غايدا إيا هدفك إيا دنتا إلهي سبحانه وتعالى إنو أبو ريوحا أي تهي إنان أساق كيريجي عابدنو إنان cid kalena wax aan ugu darin ayay tahay. allah subhanahu wa ta'ala taa isaga oo inooga warramaya waxa uu leeyahay: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. insiga iyo jinkiga waxaan u abuuray inay aniga uun i caabudaan buu allah subhanahu wa ta'ala leeyahay. dadkii hore wanaagsanaa, anbiyadii iyo saalixiintii iyo sidiiqiintii waxa ay dadka uga digi jireen إلهي سبحانه وتعالى غيرك إن لعابده. لقمان الحكيم ويلكيسا مركا أوانين يمحوك لها سيدو إلهي سبحانه وتعالى كغور رمي سورة اللقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان وحا uu ku yiri wiilkiisii asaga oo waliba waaninayo wiilkaygiiyow ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxba ha la wadaajinin maxaa yeelay shirkiga oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax la wadaajiyo waa dulmi weyn waliba waa saddex dulmi kow midda u horeysa ee naftaadii ayaa dulmisay oo aakhiro waxa weeyaan cadaab baa ku sugaya aad ku waarto thaniyan midda labaadna waxa weeyaan waxaa dulmisay waxa aad caabudaysay oo dulmi baad u geysato maalinka qiyaamaha waa la soo joojin doonaa oo waxa lagu oranayaa aha ulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun war kuwaasi ma inigay idin caabudi jireen ma inigay idin baryi jireen war maxaa loo dhibayaa dadka dhintay ee geeriyooday maxaa loo dhibayaa makhluuqaadka ilaahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ghayrkii loogu leexinayaa cibaadada uu Allah lahaa waxa weeyaan midda saddexaad oo dulmiga saddexaad ee meesha ku jirtana waxa weeyaan rabbigaagii baa dulmisay kaaga baahnaa inaad caabuddo asagaa kaaga baahan cibaadada wuxuu ku abuurtay hadafka iyo danta uu ku abuurtay waxay ahayd inaad caabuddo laakiin dadkii shaydaan baa duufsaday oo waxa weeyaan maba baraarugsanaba dadkani wali way indha xidhan yihiin ma taagna ilaahayna subxaanahu wa ta'ala suuratu yaasiin waa kii lahaa alam a'had ilaykum ya bani aadama allaa ta'budu ash-shaytaan innahu lakum caduwwun mubiin وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يا وانا قاضني الضمدي إله يوم يا وانا قاضني الله سبحانه وتعالى وحليه وحويان ilma nabi aadanow miyaanan ballan idinka qaadin inaana waxa weeyaan shaydaanka aanad caabudin uu weliba cadow idin yahay miyaanan idin odhan wa ani icbuduuni ani ii caabuda waddadaydii toosnayd waa taa oo ani inaad ii caabudaan miyaansan ogeyn inuu lumiyey shaydaanku khalqi fara badan oo iniga niga mid allah wuxuu ku gabagabeeyey afalam takuunu tacqiluun war miyaanad caqli yeelanayn goormaa la waantoobaya goormaa la caqli yeelani goorma ayay dadku baraarugi doonaan su'aalahan isweydiinaya weeyaan bishan ramadaan ee barakaysan in ku jirno ee maanta socota 17 waxa weeyaan waxa bilaabantay dhalinyaradu in ay dhageystaan waxay ku magacaabeen qasaa'id ama ay ku magacaabeen nabi ammaan laakiin waxa ku jiro ay tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ghayrkii oo la baryayo iyo shirki salaada marka aad tukanayso waxaad leedahay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin waxaad ballan qaadaysaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad ogeysiinaysaa marka aad salaada ku jirto allah yow adiga kaliya baan ku caabudayaa adiga kaliya baan kaalmo ku weydiisanayaa cid kale yaani ma weydiisanaya waxba weeyaan aayadda waxa ku jiro قصري يا حصري ما كنت وحي اللي أوراني عند البلاغيين ما حيتاي يعني وحويان وحورن بالا سو ودا كوبا انتو اشياء دي كلا اودن laga saaray ayaa ilaahay kaliya lagu koobay wax kasta lama oran nacbudu iyaaka hadii saa la oran lahaa waxyaabaha kale in la caabudina way soo gali lahayd laakiin bahasha waxa lagu horreysiiyay aadaatul maarakta xasr oo ah iyaaka baa lagu horreysiiyay adiga kaliya marka wax kasta wax kale oo wax soo galaya ma jiro oon ilaahay ka ahayn idan bishan barakaysan ku jirno hawlahaas ha bilaamay bal waxaan rabaa horta awalan waxa weeyaan odayga aafada iyo bakhtiga ay ka dhageystaan ama waxa keenay bal inay la dhageystaan bacdayna waxaan rabaa inaan u macneeyo dhalinyarada hal wixii carabiya wixii Soomaaliyana iyaga garanaya